بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض وضيال meel kasto oo anaga daawaysa ku soo dhawaada barnaamijkan waa waraysi kaga qaadi doono gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cid. gudoomiyaha oo muddo dheer majraha hayay degmada Berbera oo imika ilaa 10 sano ku dhow. haddii aan ka badnaynba laga soo bilaabo sanadkii 2012 oo uu ka mid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera oo 22 ka koobnaa oo laga doortay degmada Berbera waqtigaasi ayaa waxa uu gudoomiyuhu ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee UCID. muddo kadibna waxa uu ku guuleystay inuu noqdo maayarka magaalada Berbera. waraysigiisan maayarka intii ku guda jirno waxa noqon doona waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya runtii. isla markaana ku weydiin doono su'aalo muhiim ah oo inta badan laga yaabo inaad isweydiinaysay iyo ku weydiiyo gudoomiyaha. gudoomiye ugu horeyn oo kugu soo dhaweynaya telefishinka qaranka Soomaaliland ay waraysigan aan kaga qaadana xafiiskaaga degmada. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سنا على امر الدنيا والدين الهي محمد سبحانه وتعالى اختار تلفزيون قناه جمهوريه سوماليلاند بارمها نقيا احنا aad u faraxsanahay iyadoo aan muddo dheerna xilka hayay mar walbana ahayd shakhsiyaadka sida joogtada ah bulshada reer Soomaaliland u gudbiya wararka joogtada ah ee magaalada laga dirayo marka aad u faraxsanahay waxa uu sida laa haysan soo diiso aad ugu dhow ma santahay gudoomiye waraysigan aniga si toos ah u bilaabi doona ama u gudageli doona ugu horeyn waxaan ku weydiin doonaa bal dadkeenu barno in badan konso fiican kama haysato Cabdishakuur Cidin taariikhdiisii wax barasho waxa uu soo barbaaray halku ku soo koray balinaad noloshaadii caruurnimo adina soo yar koobto ilaa wax barasho. بسم الله الرحمن الرحيم. مختار أبو ما سنتهاي إلى على بدي يكون استحيت وكيف الشيء هو هذه لا يمانت وسؤال سيجوك تالي ويديو. أنا ما هقول شيء من هذا هالكيسة. وشا وإحنا هيان كبروني بربرة هالكيسة قبيلي وشالة إلى يومش برات كتيجا دي بنصون قنيش هذا برعانة دبنا طبعا سنوات برعانة كنا ولا إنتي دمنا. بربردي أوريجينال كهما كورة كتغلب أيام شوفنا. أرجيسا أيام كل شيء. تضبيط كي أنا قياسي تدبير مالها صباحا. كسوق حنا ماشي هذا تكتيكا. أبا مركو تشالنا كياني. نقدي سيري هنتدي سوق هذا أنا سوق سعره حبشو قبتي الشيء. لأنه حنوش كبروني برو الحمد لله. magaalada Burco ayaa barbaarteeda nololeed ama garaadkaygu si fiican ugu garaadsaday dugsigeedii hoose dhexe iskuulka Togdheer ayaan ka baxay dugsigii sare anaga waan dhamaysanin buunatiin dheerka ku dhacay form 3 anaga dagaal ku dhacay Allahumma salli wa alayk intii damana dagaaladii baan ka qayb noqonay haddana dalkan dib soo galno nolosha shacab baan noqonay xoogsada ah magaaladiisa ka xoogsada ilaa maanta la xoogsada ka maamulka badan baa soo maray oo leerkan badan gacanta ku hayay dhowr iyo 20 sano maamulka leerka marba nooc ka soo ahaa intii dambana waxaan mas'uulka ah magaaladii marka alxamdulillah waxaan aad u xusi karaa oo noloshayda dee laf dhabar u ah hooyadii dhashay إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس هاجيو ما نقول ما ندري من أنا أقول هاي لكن ما أنت اللي ما تبغى نقرنا إن أنا أقول هاي في عمل لو سبرداري في عن عبير أيه وريار فاملي أدون هكسن ولا بتصير ولا سلو تربية ذي يعني كسوبر بعضنا مركا ويا أنا حسوس دار بيقول ده توصل نقط أيام كنا ولا في عن وسوبر بعض تقال ده بقول عيوب يديرها يدير حاجة واحدة ما نقحنا نقول قادنا
waxaad markaan maantidii saarnay qorigu isagu siyaa barana baray standareelka markaan wareegaynay aal jaale wax lahada bada sameeyey waan gelin bay ilaa 3 bilood ka soo laacdo aan afrito jir aniga ayaan aqaan qoriga aka 7ka arbeedega iyo sida wax la isaga celiyo markii dee qaab dhacdeen horuman ciidanka ka raacnay markaa SNMT waad ka muuqatay anigu jibcaraha baan hay SNMT waa markii dalka soo xoreeyay soo galay baa hayay anigu nimanka jibcaraha baan anigu caawiyaashii baan hay kalkaaliyaashii ya marka si toos ah marxalad kale SNM wax leedahay wixii ka horeeyay latiyeed ya dadana dagaalada ka mid noqotay dalka baa xoroobay 1999 berberatni dee horta ma berbeqoris inaan soo galay markii aanu marka horeba 5 nin walaalo 5 bada ciidan kamid baan ahay berberasoo 5taydi markii mid baa dhintay 4taydi soo hadhay labadii isku la shaqeeyay aniga inkii la shaqeeyay ayaa waxa markiiba iska dhignay qorigii waxa aanu isku fahnay in dukaan adeer lahaa halkan macnahan warshadan dawladda hoose ka soo horjeeda oo adeerna T7 furay oo anagu waan ku soo barbaarnay isu bedeli jirnay waqtiyada xagaaga anigu yimid jiray gargaraha dukaankan hayn jiray markii isku fasaxaya inta kale isaga hayn jiray walaalo ayaan dukaankii dib u yaqleelnay ilaahay baa dukaankii noo barakeeyay dukaan labaad baan furnay kadumaanan qaban breeka sidii baan u shaqaysanay 14 labadaydi isku la sheegay labadii kale sanadkii labadii saashkii mid kala dhintay laakiin labadayda la soo qaadnay aniga ninkaas wada sheegnay Ahmed Leeyahay ganacsi baa ka shaqeynaysa marka ganacsi baan ka shaqeynaa ganacsigu nooc dukaankii ugu horeeyay horta dukaan xiisaba loo qaday in dukaan shaqeynaya oo wax laga iibsado laga helo macaan lahaa ka sharaabka noociisa kala duwan ayaan ku shaqeynay dawad ganacsi ama macaan wax laga helo ama supermarket wax laga helo waqtiga qof wuxuu xiiseynayay inuu iibsado anaga waqtigaas la jaan qaadnay oo yaqiinta ya waxna aad ugu celceliyaa labadin bay caawiyo labadin isku reer ma ahayn ya labadinna isku reer ma ahayn waqtiga ku caawi ay caawi garabsi arkayna dadaalayno anagu waxaan nidhi cuntada waxaan u tagnay khayrahan ku taala ilaa ma xaristo dhintay waxaan ku 3 waqti ugu qoran muddo bila deedna wuxuu laba waqti baan sameeyay anu quraac iyo casho qayb ka boodno quraac iyo casho ma cuni jirnay shay tara casho go'aan ku saaf jarnaa halkii bisha ahayd marka dukaanka waan xaalnay waan nadiifinay waan diyaarinay adigu bismillah shay baan ka soo qaadnay marka dadkaas ilaahay noo sakhiray baan gacan siiyay tusaalahan waliba nooleena Cabdiraxmaan leeyahay wuxuu siiyay miftaaxi marka dukaankii mishiinkii wixii bad diyaarinay meesha noo shaqeyn kaga guuxinay miftaaxi waa hadda sadcaana haaf sankora حبات فهمتوها قرا فهمتوها اللهم صل على النبي محمد كذا كرتون نعناع يسيب منه حلوده انت سنوري ما فتاحها كفرناي انت يوم ما كنا قاعدين درنا انا من هنا دغاك سكاي ديب ugu dhacay hadana from scratch ayaa ka sabro aan dib soo bilownay dagaalka soo ka dhacay magaalada waan ka qaxnay ka kalaam galnay hadana dib baan soo bilownay nooshi oo meherada qandoob hadana meheradkii isla qaybtii labaad baan dib furnay macallihi markaas oo hadana step fiican aan dhaqaajinay marka hadda man xogaha si tabaqaday oo deema wuxuu kala haadayay maan hayna markii hore zero baan haynay markaan qaxnay laash baan lahaa hodheer baan furnaa mishiinada leerka way shaqeyn jireen inta xaafadda jaarkan ku jiray halka nooshii dib uga bilownay leerkii baan dib aan ka ganacsanay maxaa hodheerkan dib u furay laashkii baa shaqeeyay laba gaari oo gaari aan la baxon loo bara markii ay hay'ad shabaan shaqo kala helay ilaahay khayraasiyo waa nool yahay daar xas daahir دكتورك أي قدري الله بربو هايو سيستانتي وراح نسوي بدل وين 16 مركب فشان الدكتور بدل هي دباتي ساي روفر تسكلو انتو طليانيه وين اي تيار بدل واحد انا ولا امرك لان حكيت برويا ايام براك سيبسدو كان لا لا ورك العك بدل ما هذا شقي وهذا ام اس اف هي هذا بعد وديبده وبحثا ميغا xoolaha lagu daweeyo oo kala lacag badan 1400 baan ka qaadan jiray xajiida isna 2100 buu hadana labarkii ay dhacay marka alxamdulillah taafar badan iyo shaqo fara badan aan qabanay baan in badan ilaa iyo maanta dalka la soo galay sarmo nus cunay hoos ma noqonay taas nolosha magaalada gudub
mid miiba jirtaa iyadana badba socoto geel lahu farda lahu beerare talaftigeeduna goormay kugu dhalatayna iyana baa mukhtaar wallahi aad bay xiisi gelinaysaa inaad noloshayda qayb ka mid ah weydiiso horta aniga qoys ahaan reerkayaga marka hore reer balaaran baan reer madal baan idhaahdaa qof shaksi remiya maanaan ahayn wixii hore dee awayaasha mooyaane dad reer magaalo baan reer madal ku haray magaalada siyaaradaa markaan burca ka nimaadno aan dubur nimaadno miya noo ahaan jirtay miyaan aragno dubur marka siyaarada laga soo dhaqaaqo burco dubur la yimaado ayay miyiba noo ahaan jirtay saddexdaa casho ee siyaaradu socoto dagaalka markuu dhacay dibadna environmentkii miyiga waa maranay oo duruuftii wayna bartay markii aan dalka soo galnay alxamdulilah bays ahaan marka horeba reerku u dhisnaa oo tusaale ahaan dee aabu hantibu ku lahaa guryuu ku lahaa magaalada awowana guryuu ku lahaa marka nolosheeda waxyaalaha aada u caawiya waxay ahayn dee bayskan hoose sii jiray magaalada marka tusaale ahaan nolosha miyiga oo kale aniga waxay igu dhalatay 1998 baan intan banaanka weera baxay baan isweydiiyey magaalaad ku tiirsan tahay haddiiba hantidan ay kaa baxdo horta ma noolaan kartaa hantidan haysatay maanta hebda lacagtan caddaanka ee waxaan hadii kaa baaba'an horta ma noolaan karaysaa su-aasha anuu ka jawaabay baan idhi haa deedna maxay noqotay beerihii ugu tag oo biyo gura ku yaalla dabadeedna beer dabadeedna wixii ka soo baxada ku noolow ilaa lacag kuma joogtay intaad beeraysa sarcaysoo keliya aymaad sugaysaa biyaha cab iyada waxaad beeratay marka dambana xoolaha waxba uma baahnid ilaahay mooyaane nolosha khiyaali baan ku noolahay inaynu inta badan iska dhexdhicino laakiin waxa wayaasheen cadow kastaaba waa adkaan kari waayay noloshiisu isku tiirsan buu ahaa marka hargeysaan tegey inaan saaxiibnay baan u tegey siid baan kasoo ibsaday waxaan kasoo ibsaday garow iyo galley iyo allahumsa iyo noocyada geedaha oo laba geedo la yidhahdo alfa iyo geedo la yidhahdo sudaan karaas intaan soo ibsaday orta waxaa ma baxayaan deedna waa ku tijaabiyey deedna way baxeen iyo digir deedna waxaan yaqiinsaday haa inaad noolaan karayso haddaad biyaha haysato beertan haysato ku saracdo waad keydsanaysaa waad cunaysaa waa naftaada iyo familigaaga de wax cunayaan ilaa adigu dalka dooma shaqeynaysid dabeedna saasaad xoolaha markii dambena beerihii baan jeclaaday beerihii baan saracay ganacsi baan ka bilaabay inaan horumar ka gaadho dabadeedna 2002 ayaan anigoo project beeraha maamulaya ayaa nin layihahdo Ibrahim ilaahay khayr ha siiya Ibrahim Kaahin ayaa talay maalintiisii wuxuu ilaa 40 sano ku dhawaad baan ka shaqeynay beeraha halkan 700 geed baan ku beernay aniga waxar igu soo xidhiidh halkaasoo geedka la tirsataa geedka waxartaasa ka qiimo badan dooda waxartaa yar ayaan waxba dhalin waxartaasi markiiba neef way dhalaysaa caanaheeda harageeda subageeda hilibkeeda inta waad intifacsanaysaa iyadoo 700 geed ka intifacsanaysaa marka waxaan dhaqay waxartii baan yaro kordhiyey riyaan ayaan dhaqay riyihii markaa way bateen maasha allah 500-600 neef bay gaadheen dabeedna waxay noqotay mushkiladda igu abuurantay in de waxaanay haween ka shaqeeyaan aan rag ka shaqeyn maalintodan shaqaale marka raacaan dahabiga haddana wax liso oo soo ayaa loo baahayaa dabeedna markii dambena geel baan ibsaday dabeedna markaas haddana igu dhatay inaan reer miyiga haddana aan dhaqo alxamdulilah rabbil caalamiin reer miyi baan sameeyey maasha allah waa dhaqan yihiin carruurtu 7 baa ku gaadheen kisan kasoo xareeyo galabo walaalo oo midna master sito midna uu ariga raacaya dee adiga ilaahay baaba kugu cadhoonay in labada qof sinaadaan ayaa noqonaysa markaa riyo badan baan ku dhaqay geel fara badan baa i dhaqan oo weli sidii u dhaqan fardaha waan xiiseeya aad baan u jeclahay marka horeba waan hobigayga iyaguna way dhaqaynaa laban kasoo ibsaday meesha lahado ciidanku berigii ay gambara qabsadeen sool gambadhaan kasoo ibsaday nugaal baa laga keenay fardafuul baan ahaa inkastoo dee xilka aan hayo aan iska aanan jecleen maadaama aanan xilka hayo inaan kaxayn karaa maahe waan ku wareegaya haddaan doono laakiin waxaan iska diidaa maadaama mas-uul tahay haddaad shay walba ka dhex muuqato dee waan timirta waad beertay timirtana haa timirta waan beeray alxamdulilah rabbil caalamiin waan jeclaan lahaa haddii ay waqti ku saamaxo waa waqtigeedii maanta iyadoo dhashay oo quruxda yaabto
ilaa 2500 geed baan beeray oo dhalay oo midhuhu ku saaran yihiin. timirta xaqiiqdiisa soo baxday gudoomiye timirta horta nin dhaqamaan iska leenahay inta badan waxay sadaqad bay badayeen marka timirta cidii soo gashaabo inta cidii ka qaadan kartaa ka qaata laakiin umaanaan diyaarin ganacsi markaan way geli kartaa markaan soo diyaarin ganacsi oo qalab iyo keeno dabadeedna waxaa malaha sadaqada kaga faa'iido badan tahay sanadkii dhammadii aaba joojisayba markaan soo diyaariyay agabkii ee dhammadii yareysay iyadoo iska joojiyo laakiin imika 3-4 beerood ku beerayna kala kaana mid 700 geed 800 geed 600 geed 500 geed si fiican oo wada waliba sanadkan maanta insha Allah waqti baa tigi doonta aad soo eegi doonta inta doonta qaato si la yaab labo oo kale marka timirtu mid waa dhirta aad ogtahay nafcay leedahay deewa noloshay ka mid tahay taasuukii ilaahay subxaanahu wa tacaala biyo timir bada ku soo noolaa marka nolosha adkeysigeeda inaad barataa waa laga maarmaan beeraha waan aad baan u xiiseeyaa waan jecelahay xoolaha nool aad baan u xiiseeyaa waan jecelahay badda iyo kalluunkiisa laga soo saaraa iyada qayb baan ka tahay nolosheeda runtii waxaan jecelahay nolosheeda inaan maalin walba maanta halkan joogana hore uga socdo aan dib u noqon ama aanan gacmaha laabanin intaad xoogga tahay dhalinyar tahay waana shaqaysaa orodda waxaa jira gudoomiye kolley hadalla soo baxaya weli beerahii baynu taagannahay oo ay dadka hadlaan inta badan oo ay dhahdaan cabdishakuur cidin xoog baa ku haysta biyo buur qaarkood adiguna sidaas hadalkaaga inanka waraysigaad ku sheegayso waxaa baa tiri awoogay baa aniga beerahan isticmaali jiray marka halkaa taariikhda ka muuqanaysa inay 100 sano beero la isticmaalayay dee ay ahaayeen bal markaa dadkeena daawanaya horta meesha bilaabay biyo guure beertii warisay oo xasan abjaal baa ka sameeyay wala yaqaana 5 beerood ayuu ku lahaa xataa si abraan la wareegay ilaahay qadarkiisa waxa kale iska hashtay baa inuu si abraan la wareegay uu ka qaaday laakiin shanta midna waa waqaf afarna waa caadi awaa iyaga leelaa wala deemka 40 iyo 7 sanadood buu mootay anigu kuma aanan garansanin badaa waxaan weesh ka dhiman waa dhaxalkii hay'ad kulliba maagista waxa iskale kursiga inta badan haddii hadal tusaale ahaan ereygan adoo kale la isticmaalana dee waa wax possible oo tusaale ahaan waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala aan sida reerkayga kasoo sheekeeyey ay sharaf ku lahay waxaa ka mid ah awoowa wixii uu tabcay carruurtu dhalay mabay baahanin iyeenan toona marka awoo 1976 buu dhintay 1976 ayaa u dhintay from 1976 from 1991 haddii meeshaasi gaab jiray waan cid reer cidin iyo reer xasan toona baan joogin dee markay yimaadeen muuqdaan dad soo maayo waxay markan soo galay meesha salaam inaka anigu waan isku daadanahay meesha dee hore joogay haddaan aragba qof dhaqdhaqaaqaya meesha ka socda baan jirin marka nimadaan beerayaan iska soconnay markii dambana waan ballaarinay extension ku sameynay beerihii agteeda ahaa wixii naga iibin karayay dee naga iibino waan ka iibsanay beerahan wax soo saar fiican aynu ka sameynay oo dhaxaad bay noo yihiin beero waxyaalahan ku xisaabtano sanadkii wax soo saar fiican ka soo saarno ayaa ka mid yihiin aan ku xisaabtano sidoo guryaha kale kirada guryaha kale maxaan ku radaa meesha lagu beeraha iyo wax soo saarkooda dee tamaanadana waan bilownay 1998 aan ka bilaabay ilaa laamka dad sarabada tagto hargeysa tagto bacad tagto waan ka shaqeynaa jiil baan sidoo wadaa marka kulli qofka muuqda dawal iska hadalhayn badan yahay laakiin ciidan wax ka qaadnay ciidan wax ka haysanaa toona joogaan deegaan cid kasta deegaanka lagu wada nool yahay cid aan meesha wax ku lahayn xabeer hada mid gaar u sheegan saana ma jirto aad buu maastan gudoomiye waxa kugu xigay inaad muddo dheer leerka soo shaqeyn kartaa marna maamulka ahaataba ka dawladda adigoo soo koobaya oo ka bilaabaya leerka gaarka wahay gudoomiye goormaad laftigeedu aad mashruuca dhinaca dardananta mukhtaar waa arrin fiican weeyaan allaha ku barakeeyo horta marka hore mishiinadan 2 mishiin oo yaryar ee macmacaalaha ugu talagalnay marka laga leer kama baxo oo markii la soo galay dabeedna khayradihii jaarka ayaa qof kasta leerkii xidh
هذا اللي مش wuxuu ka faa'iido batay leerkii aan u jiidnay macaalaha faa'iido soo saaray ayuu ka batay marka waxaan aragnay inay fursad ku jirto halkaan fursad ku jirto dabeedna waxaan kala saarnay mashiinadii mashiinkii yaraayay macaalaha iyo leerkii caadiga dadka u baxay waayo mashiinku wuxuu u baahan yahay macaaluhu leer joogta oo baxa ugu yaraan 12-13 saacadood laakiin kan isagu habeenkii uno markay shantii markay gaadhay qoraxdu sii dhigaysa leeqa ayaan wax ka siin jirnay 12 ugu dambeyn 12 barkan oo waqti jirnay habeenimo waa iska waqti jirnay laakiin yaa macaaluhu isagu mar buu u baahan talaagadii baa qaboojinaya mashiinkii baa saga baxaya liberto sharaab oo iibinaysa hadaan caawsi qaboojinin halkaasaan dadna ka tadawurnay markii dambena waxaan noqday branch gaara 4 qaybood ee magaalada ahayd qayb Shariif Fatun baa haystay qaybna Cabdi Cabdillaahi qaybna niman loo jiro iska shtaha oo farbadna 12 nin ahaa iyo anigoo gaara marka jaanisiyada dadku inta haystaan kama faa'iideystaan waqtigii aan gargaarka ahayn khasaare ma faa'iido ma aan arki jirin kanski celiye kanska caabiyo iyo ku jiri mooyaane dabayaaqadii 1999 dabayaaqadii ayaa loo soo magacaabay xasan xaaji maxamuud warsame garweyne xasan garweyne ilaana xasan asiyo isaga sabab u ahaa in berberileed midaysan oo 4 saacadood ay hesho marka isaga mideeyay mushkiladii ugu badnaayay aan waxni kar weynina isaga 7 injineer oo taatu codle gudoomiye yahay baashe gudoomiye yahay ayaa namideeyay oo si aqli sax war harkaadi kale mid baa leedahay percentage gaar ah midna laga siin maayo harkaa leerka mishiinkaaguna wuxuu ku jaroon baa leedahay marka mishiin todo mishiin loo saar balawna wuxuu qaado ina qaar kiigu badana la mishiin raaca marka sidaas afarteedii shirkadood B Berber Electric Enterprise aan ku sameeyay B ha markii dambana 2001 ayaan ha markaasoo labadii daqiiqadii intaas uu sarfay 2000 oo dhan uu soo waday 2001 bilowgeedii baan ay ku guuleystay xasan in shirkadu soo tagaa rafaad badan dabadii ugu daalayay ugu dhiso sidaasan soo wada markii la bideeyay aanu muddo taasa ka baxay maamul baansi de kama xbanaan ilaa in risbaan hana way idin maamulaha dadna waxa laga maarmay cashier aad ugu horeeyay dhaqaalihii dadna anigu waa unaraba ayaa markii koobaad leeyahay qasada noo hayntan qof aamin helana in cashier baan noqday haddana tay labaad baan qaatay operation manager baan qaatay marka maareeyay leedahay maareey ku xigeen bay leedahay xisaabiye leedahay bill officer bay leedahay laakiin waa san marka laba halbowlaan hayo shaqada routiinka oo dhan gacantan ku hay dalacadina gacantan ku hay lacagtana bay deeyacmeen marka sidaasan 7 sanadood ku soo waday anagoo aad soo jecel oo faa'iido badan ka helay marka naafada magaalada guul gaarsiinay oo 4 saacadood siinay dowladda doonada la wareegtay ha marka waxaan ka maqnaa systemka 2007 bishii koobiyo la wareegtay ka 2008 oo dhan iska muran ku jiray oo aniga dowladda muran badan dhex maray waxaan ahaa shareholderka saddexaad Shariif Fatun baa number 1 ahaa Cabdi Cabdillaahi baa number 2 ahaa ana number 3 baan ahaa marka labaduba iga lacag badan yihiin haddaba waxay ku qanceen ayaan ku yiri qanci kar waay waxaan ku qanci kar waay dowladda heshiis aan la gelin oo kula waxba la leedahay oo heshiiskii gacanta ku hayeen haddii xaqaaga cadeynaya waana madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labadii midna ma gaari kartid marka anu halkaasaan xogaa muranka oo ka bilaabmay oo dowladda waan la wareegay anoo operation manager 5 bilood meelahaasaan la shaqeeyay dabeedna waan iskaga tegey waxaan ka shaqeyn maayay dam shaqaale ka noqon maayay hantidayda deednaadka hawatii taariikh dheer dhex martay sanad dhan ee murmina aniga dowladda Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadana bishii 2009 bishii koobaad ay hadana aniga maareeyo leega dhigay marka xarigu meeshii baa iska soo noqotay iyadii baa 9kii inta ka maqnaa mushaharkii baa lagu yeeshay shidaalna waa lagu yeeshay markii uu baqtiyay dib baa waxa la yiraahdaa ninkii hal raadiyo dadku waxa ka soo shaqeeyay Ilaahay khayr ha siiye
xildhibaan ibraahim dhagax carmo oo runtii aad ifoodkay waxaan xasuustaa waxaan ku idhi haddii hudheelkaaga inta lagaa qaado dowladdu ka shaqaysi kari ku tahdo maqalka noo hay sidaa noqonaysaa damiirkaagu wuxuu aada igu qanciyey ibraahim ilaahay allaha barakeeye waa nin in badan magaaladan horumar soo gaadhsiiyey oo danaha dadka reer berber ka soo shaqeeya ibraahim wuxuu igu qanciyey waan meesha dhisoo hanti haddii kala soo bax dowladdii waktigii riyaale anigu udub baan ahaa udub weliba crasif oo ku adadag udubnimado kulliyo necab ayaan ahaa haddana waxaan ku guuldaraysanay inay udub xaqaygana siiso waxaan xaqayga ka helnay marnama qariya waan sheegay axmed maxamed xamuud silaayo inuu 2012 lacagteedii oo 300 kuna uu farta naga saaro ana markaan xilkii wareejiyo dabeedna soo sharaxo inaan ka mid noqdo consulka markaa muddo fiican baan soo maamuliyay alxamdulilah sharaf iyo magac wanaagsan waan ku soo maamulinay muhiimaduna waxa weeye inay magaalada hesho leed maanta leed fiican bay haysataa laakiin debayskeedii hore 8 saacadood 10 saacadood 12 14 18 ilaa 40 laga soo gaaray imikana waa taqaanaa adduunka nagu baktiyo qeybada dhacaysa 2 minutes lama sii karayo intuu ku baktisay markii hore 5 saacadood 6 saacadood iska maqnaan jiray noloshaada kadib maayar baad magaalada ka noqotay maanta maamul aad ku soo gashay adigu qorigiistaan 1991 ma iska had maayar baad ka noqonaysaa berigudi marnaan sabas ma lahayn way iska daa maayar baad noqonaysaa ama ashkuur baad noqon doonaa waxaan aad soo weydiin jiray oo nafteedu ku daali jirtay waqtiyadan dagaalada gallo raggu waa dhimanaya waa dhaawacmaya waxbuu noqonayaa dina in badan baa iyadoo diin qofka muslimka xaraan ka tahay inuu dhimashada tamaniyo haddana badan mas'uuliyiin joogan jireen iyo dadku wada maayeen waxa dhima lahayn mid kale kulli wax sugisay dhimasho bixid abshuur baa lagu doonaa qof baa noqon doonta la yaqaano waxa noqon doonta maaya warkiisa ba dhaf mas'uulaha ama ganacsade marna ma ahayn hamigeeyo labadoodan bay ahaa in dalkii la qabto oo xorriyadii iyo ujeedadaan lahayn gaadhno iyo in qof dhinta noqdo weliba waxay u badnaan dhimano oo hamigeena ku kala ka siyaasadda iyo maayarnimadu wixii galay horta magaaladan marxaladan bay soo martay magaaladan waqti baa jiray dadkuba ka hayaa ama reer berber iskaga guureenba berbere dadkeediiba ilaa imika qaar baa maqanta ilaa maataan kula hadlayaba iyadoo sano hore martay ay de way ka hayaameen intay u sokayso hargeysa qaar baa jiray imika reer berbere oo ugu dambeysay 1994 ama 95 97 ama 2000 ugu dambeysay ama 2004 oo kale marka waqtiyada gaabka ilaa 2000 intii u dhaxaysay ilaa 2010 magaalada waa laga hayaami jiray wada xasuusta BBC-da maray wareysanaysay maayarka iyo barasaabka ay weydiinaysay sababaha looga guuro marka aniga walaashii bay kaga gurtay magaalada dabeedna waxyaalihi aadii damqay bay ahayd anigu markaa noloshay qorshaha noloshayda imika iyo markaaba toona kuma jiray sabtaa meel ka shaysa inaan tago marka waxaan go-aansaday wallaahi haddii aad soo sharaxdo maamul ka mid noqoto xumaad ka bedeli lahayd magaaladaada ayaniyadeeda gashay oo waxaan aada loo saluugayay mar walba mas-uuliyiinta iyo maamulka waqtiga iyadoo duruufo ku gadanaayeen dee duruufo ay jirtay marka waxaan xasuustaa waqtigaa 2008 markii aan dowladda sahnay anoo maalin cadhaysan oo barsaabka ku geli kari waayey oo askarigu maalin barba dad biyo tukutukiyo ayaan soo jeeray deedna waxaan usoo galay aan naxariisinay aada u qiimo badnay maxamed cabdullaahi barsaabkii dabeedna wax kale maan ku odhan waxaan ku odhay miyaanad ka baqinin kursigaa fadhido birtinaan imaado markaasu war soo fadhiiso ilaahay naxariistanaasi caawa igu hooseeya horena una sheegay wuxuu igu yidhi qof kaaga nasiib badima bararo ma joogo adigu istajiyo deedna anigu inta badan waxaan jeclay xorriyadda dadkii in badan bay ku daalaan in cidin waxay ku daalaan anigu waxaan diido waan ka falceliyaa qof kastoo basharna saasaa looga baahan yahay maaha hebel baa saa yiri ibka maayar baan heerayga ugu badan waxa weeye cadaalad darradu waa tad qoriga la gashay la gal adigu badana haddaan ku dulmiyayo aniga la galde waxa ku haya adiga ilaa waxaan diiday damiirkaygu qalbigii waxbuu diiday waan qaani kari waaye adigu waxaad in cidin ku diiday gal halkaa marka ka dhufaadaa doontay sadul mawad adu qaataa marka anigu inaan dowladda ka mid noqdo waxaan ka jeclaaday inaan noqdo qof la doorto
markaa hamigu wixii galay waqtigaa aan ku jiray 2005 markii la dooranayay baarlamaanka baan sii qodax dhigtaan reerkayga u sheegay aan ku leeyahay musharax baan ahay haddii degaan baa haddii la helo ilaa 2005 waqtigaas aan rajaynayay 2012 iyo rumudi haa ilaahay subxaana watacaala markii dambana maayar baan noqday alxamdulilah hamigii igu jirtayna ilaahay raxmaanka ha uu ii fudeeyey weliba marxalada adag ayaan anigu dee maayarnimada ku noqday inaas waafajiyo bulshadayda iyo dowladdii oo labadaba iska soo horjeedaan labadaba oo weliba u jiheeyo inaan magaaladeydii wax ka bedeli karo dadkaygana dowladda faahsiin karo dowladdana anigana ay aaminto idaaniga waqtiga mucaarada ay aragtaa nin de ka soo horjeeda isagii nin la buunbuuniyo de lagu musanaabay baa laakiin waad ku qacsanay guddiga dadku raacda marka maayarka noqotay dowladda haayo fikir khaldan weeyaano waaniga hore uga jawaabay dee horaan uga jawaabo waxaan kugu iri haddaan aaminsanahay in dowladda kulmiye oo madaxweyne siidaayo inay ka go-an tahay in qof bulshadiisa u adeegaya uu raalli ka yahay deegaan iska sharaxba lahay lamaarihii baan ahaa leerhka laakiin waxaan islahaa ummaddaada wuxuu qabanayso against bay ka yihiin laakiin gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey markii aad maayarka noqotay haa gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey madaxweynihii iyo maxaan ku dhahdaa ilaahay khayr ha siiye way ka baqaan siyaasiyiintu iyo anigu waan sheegayaa xirsi xaaji cali ya oo isaguna aada runtii soo dhaweeyey iguna dhiirigeliyeen ummadda iyo bulshada u adeego fishinka iyo aragtidaan leeyahay waxa weeyaan inaan dadkayga wax u qabto madaxweyne siilaayana fishinkiisa aragtiisa waxay ahayd in bulshada wax loo qabto horumarna la gaarsiiyo intaasay ahayd gudoomiye maayar baad noqotay degmo dhan oo bad iyo berri belay oo dekadii ugu weynay dalku ay ku taallo oo maamul hore kaa horreeyey adiguna nin iska mujaahido oo magaaladiisa iska xoog sidaad ahayd hawla adag baa ku horyaa xaggaad wax ka bilowday markaad maayarka noqotay mukhtaare weyaan horta bini aadamku wuxuu isdheeryahay sirta nolosha marka aad mas-uul tahay ee cunto ku doorato horta way ogaatay adaa lagu sugayaa aan yaro dhaliilabe tusaale ahaan wasiirada marka la yihahdo wasiir baa la magacaabay wuxuu doonaa ha noqdo wasiirkan waxaa la doonayaa inuu wasiir dhigiisa ah oo caalamka ah inuu la jaan qaado oo uu halku ninkaas gaadhsiiyey dalkiisa heshiisna la soo galo saaxiib la noqdo dalkiisana gaadhsiiyo laakiin hoos soo noqda maha waa mushkiladahayna haystaa adigu mas-uula ka tahay adig ummaddii kusugaysaa lagu dhiibay baashi xilkaadaa lagu dhiibay marka anigu markaan ogaaday in labada gacmoodba laba dhimbiloo kuligu jiraan waa inaan mid isugu geeya aan qabtaa xijiya maxay noqotay go-aanka qaatay maalintan xilka la wareegay cabdalla waa nool yahay ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha barakeeyo nin aada u qiimo badan weeye waxaan ku yidhi qof reer berbera ah oo leh lacag baan ku leeyahay cabdalla yuu jirine faariqi meesha mushaharkii xitaa shaqaalaha ku jira ka saar si wax yar oo aan macno lahayn ayaa ku hadhay qof deen u sheeganaya cabdalle oo lahaa cabdalle aan ku leeyahay ama systemka ku leeyahay mu jirin deedna bej cad baan ka bilowda anugu deedna go-aankan qaatay muxuu ahaa inuu hadda marka hore dakhli sameeyo maadaama miisaanida aada u yar tahay hantidaydii anigu aan lahaana in intaad soo qaaday baanka intaan dhigo aan qaato 1,200,000 $200,000 oo cash intaan qaato dabeedna aan ku invest garay magaaladeeda